وعن داوديال دمانتينبا cudurka coronavirus ama COVID-19 wuxuu aafeeyay dunida oo dhan waxaana wali dalalka adduunka ay wajahayaan caqabado la xiriira sidii loo maareyn lahaa ama loo heli lahaa talaal cudurkan lagula tacaalo malaayiin qof ayaa cudurkani uu ku dhacay halka inta u dhaxaysa 350 ilaa 400 oo kun oo qofna ay u dhinteen inkastoo meelaha qaarkood dunida la dareemayo in kiisaska cudurka uu hoos ay u dhacay oo la qaadaya xayiraadihii ama bandowgii la soo rogay markii uu coronavirus baahay haddana dalal kale ayaa kiisaska cudurka coronavirus wali uu sii kordhaya dalka Soomaaliya coronavirus farabaan ayuu ku hayaa oo kiisaskii maalin walba waa ay kordhayaan haddaba laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay idin soo gudbinaysaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan coronavirus dhaqaatiir iyo howlwadeeno caafimaad oo barnaamijkan ka qayb galaya ayaa sharxaya halista coronavirus iyo waliba sida loo xakameyn karo haddaba maxaad ka aaminsan tahay xanuunka sideese looga hortagi karaa ama loo xakameyn karaa fadlan su'aalo ama muuqaalo kooban iyo talooyinba waxaad noogu soo diri kartaa emailkeena somali@voanews